maanta maxaa ka dhacay magaalada Ceelgaabo maleeshiyadii Muuse Biixi ayaa wiil reer SSC ah oo dhulbaxanta ah ku dileen waliba si ula kac waa lagu yaqaanaa dandaansiga isaaqa iyo fureynimada markay wiilka xabadda ku dhufteen darawal ayaa qaaday dhaawiciisa markuu isbitaalka geeyana isla darawalkii baa la jir dilay iyadoo inta laga raadinayo hartiga degan gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceelgaabo inay kacaan anigu markuu warkaasi soo gaaray waxaa jirta dhaqan aan leeyahay iyo kalsooni aan ku qabo harti gaar ahaan dhulbahante Naaleya Axmed nabada layga maraba waxaan qaatay go'aan ilaa wiilkaasi dhulbahante afar isaaqa loogu aaro inaanan barnaamij soo duubin nasiib wanaag go'aankaygii waa lay tixgeliyey hartigii deganaa Ceelgaabana waxa ay ii soo direen afar meyda oo wiilkii loogu aaray oo habar jecel ah waana sababta aan muuqaalka hadda u soo duubay waxaan dul istaagi doonaa wixii halkaa ka dhacay min bilow ilaa iyo dhammaad duleedka magaalada Ceelgaabana dagaal baa ka socda waan dul istaagi doonaa gurmadka ciidanka harti ee soo dhaqaaqayna waan idin daawasii doonaa waan wada daawo doonaa hadduu alla imo waxaan kaloo idinka dabageynayaa qorshaha dagaal oo hadda maleeshiyaadka habar jeclo ee u shaqaynaya Muuse Biixi ay Ceelgaabo ka wadaan ujeedada ka dambaysa ayaan dadka Soomaaliyeed la wadaagi doonaa warnaaleya Axmed iga gaarsiiya salaan sharaf badan warnaaleya Axmed iga gaarsiiya waxaan idin leeyahay dad dhashay karti leh qiimo badan oo reer Soola oo reer Sanaag ah oo weliba aan ku ogahay geesinimo tihiin cimaamadiinana lama haysan karo muuqaalkan Naaleya Axmed baa la yiraahdaa sheer gareeya muuqaalka sidoo kale hartiga Ceelgaabo degan ayaa la hadlayaa majeerteen warsangeli dhulbahantare dulmigan habar jeclo ay wadaan waa ka hadli doonaa soo dhawaada muuqaalkan oo dhammaystiran ayaan hadda gudagalayaa sii sheer gareeya fiidowgana lagsaa dulmigii lagu yaqiinay maleeshiyaadkii Muuse Biixi ayaa ka qarxay Ceelgaabo markaan maqlay dhimashada wiilka reer SSC gaar ahaan wiilka dhulbahante Naaleya Axmed waxaan dhahay allay leh markeedii maaha maxaa anigu marnaba ma qaato wiil dhulbahante ah oo aanan afar qof loogu aarin maba ka soo hadlaba ugu yaraan waay afar qofood haddaan loogu aarin aniga wiilka dhulbahante kama soo hadlo arrintiisa hartiga degan Ceelgaabo arrinteedii waa ka soo jawaabeen wiilkii ay maleeshiyaadka Muuse Biixi dileen oo maleeshiyaadka habar jeclo afar baa loogu aaray waana sababta keentay inaan barnaamijkan ka soo hadlo haddaba waxaan rabaa siday wax u dhaceen ayaan si xaq ah u dul istaagi doonaa maleeshiyadii Muuse Biixi ee habar jeclo waxay yimideen magaalada waxay toos oo ka u toogteen wiil dhulbahanta ah reer SSC ah wiilkii dhaawiciisii baa la qaaday isbitaalka markii la geeyay darawalkii qaaday meydka wiilka ayay jir dileen waxaasoo idil marka waa daandaansi marka ma qaataan reer Ceelgaabo dadkaa hartina lama daandaansado isla markiiba jawaabtii baa bilaabatay afar baa loogu aaray dagaalna duleedka magaalada Ceelgaabo ayuu ka bilowday gurmadna waa jiraa oo aan idin daawasiin doono waxaan rabaa marka koowaad inaan dul istaago dagaalku siduu u dhacay ama u socdo xilligan duleedka magaalada waa ka warrami doonaa gudihii abaabulka ka socda waa ka warrami doonaa si lamidana waxaan dul istaagi doonaa fariinta aan harti u dirayo iyo ujeedada dagaalka maleeshiyaadka Muuse Biixi ujeedada ka bilaabaya maleeshiyadan habar jeclo ee Muuse Biixi sababta ay dagaal uga ridayaan magaalada Ceelgaabo waxay rabaan maxaabiis ay yiraahdaan dagaal ku qabsaday maadaama looga soo adkaaday dagaalkii soo waxay rabaan inay xabado iyo xasarad ka kiciyaan magaalada dagaal ay geliyaan dadka deegaanka kadibna ay yiraahdaan dagaalkaasi aan ku qabsanay maxaabiis ilaa waa habar maxbuus waa dadkii soo lagu fashiliyay lagu kufsaday marka waxay rabaan argosi gobolka Sanaag laakiin harti meel walba joogo lagama aarsan doorsan karo Naaleya Axmed ma ku jiraan sidaa darteed waxaa ilaahay mahadi ah dulmigii ay wadeen inuu fashilmay dagaalkii baa qarxay waa looga gacan sarreeyaa maleeshiyadii habar jeclo ee Muuse Biixi horta uu soo diray isaaq waxaa lagu yaqaanaa dulmi iyo dagaal xumo xabaddu hadday bilaabato wiilkiisa dabaday xabaddu uga dhacdaa hadday xabaddu bilaabato wiilka isaa dharku ka carara
waana sababta keenaysa mar kastaba inay dagaalada ku jabaan dagaal lama yaqaanaa daandaansiga iyo kibirkana mar walba bannaanka ay la taagan yihiin ma xuwa jawaabtii koowaad wiilal dhalinyaro ah oon halkan ka salaamayo ayaa bixiyey tusay in magaalada looga adag yahay kadibna waxaa toos ugu biiray qof kasta oo damiir leh oo harti ah maanta ma jiro qof harti ah oo dagaalkaasi ka aamusi kara haddii ay jiraan horgallo harti ah oo degan ceelgaabo oo dagaalkan u haysta inuu majeerteen iyo dhulbahanti iyo warsangeli qayb kamida ku egyahay waxaan idin leeyahay dagaalkan iyo dulmigan qof kasta oo degan ceelgaabo ayuu saamayn ku leeyahay habar jeclana wadahadal ma taqaanee dharbaaxshay taqaanaa marka qof kastoo harti ah horta ha ogaado dagaalkan waa mid saamayntiisa leh intaa kadib dagaalkiibaa qarxay duleedkiibaa la isku haystaa magaalada gudihiibaa shaqaaqooyin xoog leh hadda uu ka socdaa dhalinyaradii magaalada deganeed ee u dhashay harti ayaa u taagan inay ku biiraan dagaalka duleedka magaalada ka socda habar jeclo dulbadiiba qayradhaantoodiibaa bilaabatay khasaaraha dagaalka inkastoo weli uu socdo haddana wararka lagu kalsoonaan karo oo aan helayo xilligan waxay sheegayaan in looga gacan sarreeyo dagaalka marka waxaan leeyahay hartiga degan gobolka sanaag walaalayaalow gala dagaalka gala bisha November waxaan rabaa inaan booqdo gobolka sanaag bisha November ilaa December waxaan rabaa inaan booqdo magaalada ceelgaabo hartiga halkaa degan waan idin imaanayaa iga xoreeya ka tirtira maleeshiyaadka muuse biixi ka amar qaata ee habar maxbuus waxaan idinka rabaa dagaalkaas inuu noqdo midkii aan sool uga adkaaday oo maxaabiis ahaan wax ka badan 400 maanta aan gacanta ku hayn reer sanaag magaaladaasi oo bilaa SNM ah ayaan rabaa inaan sanadkan November soo booqdo ilaa iyo December halla tuso weliba naaleeye axmed waxaan leeyahay kartida iyo geesinimada aad sool kusoo bandhigteen mid la mid ah idinkoo walaalihiin kaashanay gobolkii sanaag baan rabaa inaad casharkaasi ka dhigtaan habar jeclo dagaalkaasi waa kusoo jabta waa xaqiiqo dhab ah laakiin ujeedadeedu waxa weeye maadaama ay habar maxbuus ahayd muddo inay halkaa ka raadiso maxbuus ay tiraahdo dagaala kusoo qabsanay laakiin waxaan leeyahay idinkoo intaan ka tabar badan bay dhulbahanta idin kufsadeen idinkoo intaan ka tabar badan ayuu harti sool cashar idinkugu dhigay sanadkan naga dhammaaday 2023 November bay ahayd 2023 markaan ku durgaardinayay baktiga habar jeclo maantana waxaan rabaa isla baktigaasi gobolka sanaag in laygu tuso halkaasna ay noqoto cashir dhammaan aan lahayn kalsooni baan ku qabaa hartiga degan gobolka sanaag warsangeli dhulbahante iyo majeerteen horgallada marka mid iga gaarsiiya meel kastaba horgallaa laga helaa gobolka sanaag ba horgallaan ka sifaynay horgalka warsangeli horgalka maanta u shaqaynaya dhulbahante ee maleeshiyada habar jecla ka tirsan horgalka majeerteen ee u shaqaynaya habar jecla walaalayaalo haddaad isleedahay warsangeli baa tahay aday ku dhaafayaan habar jeclo been baad isku sheegtay haddaad isleedahay majeerteena tahay waxaa ku dhaafaya habar jeclo been baad isku sheegtay haddaad isleedahay dhulbahantaa tahay way ku dhaafayaan habar jeclo been baad isku sheegtay hartiga horgallada ah ee sanaag degan waxaan uga adkaan doonaa sida aan sool kuwa joogi jiray aan uga adkaanay sidaa darteed waxaan leeyahay horgal walba gala dagaalka ciidanka gurmadka harti ee u soo dhaqaaqay dhowr saacadood ka hor inta aanan barnaamijkan soo gelin weliba